igu soo laabtay oo taagan idinkoo nabad qaba iyo anigoo nabad qababa waxaa jeclay inaan isku soo laabanay. Xalay ayaa loogu soo afjaray koobkii Afrika magaalada Cameroon. Dalka Cameroon oo martigeliya ahay ayaa xalay koobkii lagu soo afxiray gibi ahaanbo markii ciyaartii finaalka xalay lagu qabtay mar oo dhexmaraysay labada wadan oo inaba caadi ahayn oo dhihi karno waa labada xul oo ugu kulul Afrika waa kalaasikadii Afrika waa labada xidig ugu caansan labada wadan ee u kala ciyaaraan waa Sadio Mane iyo Mohamed Salah. waa labada xidig oo isla dheelo kooxda Liverpool ayaa gibi ahaanba xalay iska soo horjeestay laba nin kasta oo taagna calankayga ayaa difaaca calankayga ayaa gul u keena bal aanan kala sama difaaci doona calankeena Soomaaliya wax u dhinta Soomaaliya arki doona insha Allah yawm al-ayam waa ku tagi doona ayaa ciyaar kulul ee dhexmartay labada wadanbo inaba caadi ahayn ayaa gibi ahaanba looga gacan sareeyay looga guuleystay dalka Masar ayay Senegal ku guuleysatay koobkeedii ugu horeeyay aan dhihi karnaa waa koobkii wadankii 15aad oo koobka Afrika qaadayo markii ugu horeysana tahay inay ku guuleysato koobka Mama Africa ayaa wadanka martigeliyaha oo Cameroon oo xaflad inaba caadi ahayn xalay meesha ka dhigay maadaama wadankooda soo heray oo dhihi karno saddexaad ayuu galay ayaa dhihi karta xalay taageeraha inay u badnaayeen Senegal balse Masar waxa siirin iyo Abu Gabal way dagaalameen markii daqiiqada 6aad markii hore laga dhigay oo Abu Gabal banaanka ka geeyay Sadio Mane ayuu dhahay iga raali ah oo saaxiib ay soo gabgabeynine balse Sadio Mane ayaa diiday markuu dhayrigoorada ugu dambayso oo ugu xanuunka badan leh aniga shuudaayo ayuu ka dhashay Abu Gabal goosha balse rigoorooyinkii ayaa gibi ahaanba ku soo laaday 4-2 adiga 4-2 gibi ahaan rigoorooyin ku soo wada laadeen markii Masar laba rigooro cuntay Senegalne hal rigooro cuntay adiga Masar koobkiisa sideedaad way la imaaweysay balse Senegal ayaa qaaday koobkii ugu horeysay idoo hore u soo qasaartay saa u soconabo 2002 tababaraan hadda wata Senegal markuu laacibka ahaa jiray iyo Alxaaji Diouf iyo 2021 markay wadanka Masar lagu qabanayay ee ku guuleysatay xulka Algeria ee ku guuleysteen waa koobkii la soo dhaafay 2021 balse markaan Sadio Mane ayaa diiday wuxuu dhahay abadan lagama yaabo markii labaad ina garoonka dhexdiisa ku ooyo ayaa dhihi karnaa diishaha Senegal xalay uu dagaalamay oo wuxuu ku qaatabo afdal laacib fil budula xidiga ugu wanaagsan seasonka oo hadda ka dhacay Afrika afdal laacib oo ciyaartana waxa qaatay man of the match waxa qaatanay Ishaq Borteriga Abu Gabal ayaa dhihi karnaa afdal xaarisna waxa qaatay xidiga u dhelo Chelsea iyo qaranka Senegal waa Borteriga Senegal inaba caadi ma aha dhigi karaa wallahi Senegal way dhisan tahay waa wadanka kaliya hadda oo dhigi karno Afrika danahay kana ku dagaalami karnaa oo wadanka la fara kuma hayna dhigi karnaabo waa wadanka kaliya ugu ciyaar wanaagsan hadii la Bruno wanaag iyo nooc walba wala sheego oo saa ugu fiican inaba caadi ma ahan balse ciyaar kale kulul ayaa ka dhacday markaa ku macsalaamayna Mama Africa dhanka iyo La Liga u wareegna ayaa ciyaar kulul xal dhexmartay Barca iyo Atletico Madrid ayaa dhihi karnaa odayaalka dib bay u soo laabteen Barca dib bay u soo laabteen ay taaganaay Javi iyo ciyaalkiisiiba way soo socdaan markay soo gateen rag feero waaweyn oo inuu feertamar u malaysid Adama Traore iyo adoogi Aubameyang ayaa dhihi karnaa Javi wuu soo socdaa markuu xalay Atletico oo ku naqaano difaaca nimankii dagaalamayay oo difaaca ku dheeray marba hadee intay gool keeneen loogu bedelay 3 kaalinta koowaad ayaa dhihi karaa Dani Alves adooga wuu soo shaqaysto haya annaba caadi maahan oo waa laba tababaro Barcelona tababaro garoonka ka ciyaaraya iyo tababaro banaanka jooga ayaa dhihi karnaa ayuu gool mac dhashay xidiga Jordi Alba ayuu gool mac dhashay Alves ayaa soo qatimay goolashane markuu dhugooshi 4 dhashay Barcelona ayay gibi ahaanba ciyaarta ku soo gabagabowday 4-2 ayaa dhihi karnaa Luis Suarez oo xal dhahayo laga raali aada taageeraha markuu gool ka dhashay kooxdiisii hore oo ixtiraam la yaqaan sameeyay adoo ixtiraam ba ku dambeeyay karaa waa intaabo dad badan oo karoon yahay inaba caadi maahan iyo Alves oo taagan ana superhero ayuu taagan Alves gibi ahaanba kusoo gabagabowday 4-2 oo Garnaado hore dhib oo saa ku naqaanba inay ka cadeysata jacaylka waxa waaweyn
balse Real xalay diiday waxay dhaadeen maadaama odayalkii boorkas soo jafeen boorkas ka jafi karaa ay ugu basheen hal iyo ever goosho waxa uu keenay Marco Asensio gool caadihan laakiin naba caadihan ayuu ka dhashay Marco Asensio ayaa dheekarna ay gibi aan ciyaarta ku soo gabagabooday oo 0 le Madrid الفرق الملكية ayaa sida ku guuleysatay hal iyo ever markay ku guuleysatay ayaa ida dheekarna danka Serie A Talyaaniga ayaa ciyaar kul ka dhacday marka Juventus iyo isdhaxgaleen iyo Hellas Verona balse Juve ayaa sanadka idna taagan maya dib u soo laabanaya markii laacibin kul la soo gatay waa fi Hailovic iyo Zakaria ayaa labada xidig oo hadii ay soo iishatay Juve labada gool kala la sheen markuu fi Hailovic gool la shay marna gool oo sallaxay Zakaria ayaa dheekarna fi Hailovic وعلى طول كأنه إنه كل شجران كتورينو أو بق تنتي كعاجر جرام في عمل حسابه إن بعد ما هن أيام ماشي لو إمام هذا لو هذا حدك أي يوفي نتانتهي إنتر ميلانو وصوص هذا عمل تانتهي وذلك أيكو أتطلع أكو رأي ماشي ذيك بقوان سي عرّ كجرا وسير دوان يوفي ما صك عادي خدنا حني ما كلامنا كان هير فانتاستيك سبسكرايب يلا قال إلا من وحني ما كلامنا حفل داني رستا أو ماما أفريقيا